بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم أما بعد، كلمة محاضرة أساس عتا وحن إن شاء الله تعالى كهدي دونا موضوع دير وأنكم عابي الحياة طيبة. موضوع الحياة طيبة والنلل وناكسن، وأنا معناها كلمة دي للشيء هي كيف تستمتع بحياتك، سيداد نولش هذا أقول راحيسن كرتا. موضوعا وصدح قيبات ووين حدو إن شاء الله إلهي راهدنا وحنرجيني يا الله قيبات إن أن مركل كهل لدونه، لكن ما أنت وحن كهل لدونه قيبت أقوه الرئيس عيش مطمئنا واترك القلق. وحاد نولاتا نولل دجن oo aad ku raaxaysato oo niyadaadu ku degan tahay, walwalkana iska dhaaf, iska ilaali walwalkana iska dhaaf. waxaan ka hadli doonaa marka afar qodob. qodobka koobaad waxaan taariifin doonaa waxa la yiraahdo qalaqa, waa walwalka waxa inagu u naqaano. waxaan kaloo insha Allah taala ka hadli doonaa asbaabta keenta qofku inuu walwalo. waxaan kaloo insha Allah taala ka hadli doonaa cilaajka iyo daawada lagu daaweeyo walwalka ama walbahaarka waxaan u naqaano. waxaan ka hadli doonaa marka ugu dambaysan sidee la isaga ilaalin karaa. mas'alada ikhwaani ugu horeysa waxa la yiraahdo walwalka, waxa la yiraahdaa waa mucawiq lisacaada. nolosha sacaadada ee qofku uu ku dago ee uu ku liibaano ee uu ku raaxaysto waxa qofka ka hor istaaga oo ka qasa ama ka ciideeya walwal wax la dhaho. waa jira maanta aad u badan oo dad badan ku dhacda. asalkana waxa uu ah adduunka aan joogna waa daaru ibtilaa, waa meel imtixaan ilaahay u ka dhigay oo la isku imtixaamo. adduunku waa daaru ibtilaa, aakharana waa daarul jazaa. adduunku waa daar imtixaan, aakharna waa daar abaalmarin ah. taasaa keenaysa qofku adduunka inuu ku dhibaatoodo oo ku walwalo oo walbahaaro oo murugoodo. taasaa keenaysa. waxaan marka rabaa maanta inaan daraasayno bal sida aan walwalka iyo murugada isaga ilaalin lahayn, oo adoo degan oo raaxaysanaya oo niyadu kuu qabowdahay aad ku noolaatid. haddaad rabto xataa lacagta haysata ha yaraato, haddaad rabto guriga aad degan tahay ha yaraado, haddaad rabto baabuurka aad wadatid ha yaraado, laakiin inaad ku deganaato, niyada ku deganaato. waxaa la yidhaahdaa qalaqa ama walwalka waxay culimmadu ku tacriifiyaan waa cibaaratun can raddi ficlin ghayra muxadadin liljismi tujaaha talabin yastadci dalika. walwalka waxaa la yidhaahdaa waa raddulficil ama jawaab qofka ka timaada jirkiisa marka caqligiisu uu ka dalbo inuu jawaab ka bixiyo dhibaato ku dhacday. wax keensanaya inaad ka fakerto ayaa kugu dhacaya. waxbaa kuu muuqanaya, waxbaad isboodsiinaysaa, ama waxbaa kugu dhacaya, waxbaa kula soo gudboonaanaya. marka caqligaagaa jirkaaga la hadlayo wuxuu u sheegayaa in jirku uu iska difaaco dhibaatada ku soo socota. bula fiirsada,
wuxuu marka jirku sii daynayaa waxyaabo hormoonaad ah buu sii daynayaa hormoonaadkaas waxay culimadu dhahaan waa hormoonaad difaaciya waa difaac jirka bay u tahay marka jirkii way fiican tahay jirkaaga inuu isdifaaco laakiin markuu jirku difaacaas hadduu bato waxaa dhacaysa in uu kugu abuurmo walwal qalbigaagu uu kurboodo wadnaha uu ku garaacmo aad isla hadasho aad isla sheekaysato aad iska oydo adoon is ogeyn hurdadu kaa tagto maalan tusaale idin siinaya waxaa dhici karta maalmaha ka mida adoo caadi iska ah qof aad u jeceshahay oo dadkaaga ka mida inuu jirado caqligaaga marka jirkaaga la hadlay adu ma dareemaysid wuxuu leeyahay dhibaataa kugu dhacday musiibaa kugu dhacday musiibadan maxay kugu dhacday maxaad galabsatay marka jirkiibaa wuxuu ka fakarayaa inuu xal u keeno dhibaatada dhacday marka hormoonaad buu sii daynayaa difaaciya kuwaas hadhow waxay kuu keenayaan inaad taad walwash dhiikar kugu dhaco oo sonkor kugu dhacdo oo hurdala'aan kugu dhacdo oo nervous aad noqoto oo mar walba aad walwasho baa keenta culimmadu saasay ku tacriifiyeen waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa la yidhaahdo walwalka sidiisaba waa saddex qaybood waxaa jira qalaq matluub ah walwal la rabo inaad walwashid ama aad fakartid ama aad murugoto waxaa ka mida maalan haddii lagu istaajiyo meel sare buur haddii lagu saaro waxaad ka walwalaysaa inaad ka soo dhacdo haddaad ku soo aadid waddo highway oo baabuur yaacayso aad soo dhex gasho waxaad ka walwalaysaa inuu baabuur kugu dhaco walwalkaas walwal fiican wey haddaad camal samayso waxaad ka walwalaysaa haddaad mu'min tahay camalkaas ilaahay inuu kaa aqbali waayo waxaa la yidhahdaa haadaa qalaq matluub wey waxaa jira mid la yidhaahdo alqalaq almaqbuul qalaq ama walwal ama murugo caadi iska ah مطلوب ما أهل لقمة هي وإن الثميسين لكن هو عادي ويدعى وطبيعي أو حكم إذا مثلا الخوف من الحروب هدو دقال نوعه إن أتكبق إنه كسامي أكسو جاره وحكم إذا مثلا قلق مقبول كإسكاء هدي عنق عرورته كامل كاجي كذو إن العاوة والوشوء يدعك إن بتسيحون ويدبا ووحا اسكا عادي لكن مركا او تربى تولول كاسي او اديغا كمامولو او نولوشادي او ساميو وحو يسو بدليا جيرو يسو بدليا ان قيبت صدحاد ولولكا waxaa la yiraahdaa alqalaq almarfuud waa mid la rabo inaad iska ilaalisid waxaa laga wadaa midkaasi waa alhuzn almustamir ala almaadi qofka markuu ka murugaysan yahay waxyaabihii dhaafay maadigiisa wixii tagay dad baa waxay la seexan waayaan murugo uu ka qabo noloshiisii dhaaftay maanta dhan wuxuu ka fakarayaa allah hadaa saa samayn lahayd maxay waxaas u dhacday maxay saas ku noqotay sanadkii inta khaladaad samaysay maxaa Mareykan ku keenay maxaad meel heblaayo u aaday maxaad naagta u guursatay maxaad ninka u guursatay maxaad cunuga halka u geysay wax dhacay oo tagay yumaantoona ka walwalaya walwalkaas waa marfuud waa wax dadka jirrada iyo dhibaatada ku keenay waxa kamida alhuznu ala almustaqbal in qofku uu mar walba ka baqo oo uu ka murugoodo mustaqbalkiisa waxa la yiraahdaa al-khawf ad-daa'im min al-mustaqbal dad waxay kala seexan la yihiin mustaqbalku ka baqaya gabar kamida gabdhaha hooyooyinka ayaa sheekh su'aal weydiisay waxay tiri sheekhow waxaan la seexan waayay muruga hurdadii iga qaaday gaasuu sheekhu wuxuu yiri maxaa sababay murugadan waxay tiri gabar baan dhalay waxaana muuqata maanta gabdhaha markii gabdhaha la guursado waa la silciyaa oo waa la furaa marka waxaan ka baqayaa bari gabadheeda markay qaangaarto la guursado in la soo furo waa gabar hadda dhalatay fiir waa al-khawf min al-mustaqbal waa waxyaabaha walwalka la rabo inaad iska ilaaliso hadduu walwalkaasi kugu bato inaad wixii tagay oo soo celin karin aad ka fakarto mar walba inaad ka murugooto waxa imaan doona noloshaadi way burburaysaa walidaalka waxa la yiraahdaa
العيش للحظة أما على اللحظة وسعادة دقيقة أجوكتد إن أتكفكرت أتكون ولا تمالين تادا سنة كاغا ماشا أجوكتد واقع إن أتكفكرتد أتكون ولا تد وسعادة الليبان وي لفت هذا الليبان وحان كلام ربا إنا وحير كهالله وحل اللي يراهدو حزنك يا وحل اللي يراهدو قلقه iyo waxa la alkaaba waa saddex shay oo kala duwan waxaan Soomaaliya ku fasiri karaa mid waxa weeye waa murugo midna waa waxa aan walwalka inagu dhahno kaabaduna waxa weeye qofka in ay ku dhacdo jiro fakar ah oo buufiska ka dhahno kala qofku isla hadlayo oo fakarayo oo saxanayn oo buufis ku dhaco saddexdaas shay way kala fududiin murugada xusnigu waxa weeye maanta dhibaato yar oo kugu dhacday inaad ka walwashid dadka dhan way ku dhacdaa inuu ka murugoodo way ku dhacdaa waqtiga xalliya dadka inaad la sheekaysatid baa xallisa inaad quraanka akhrisid baa xalliya qalaquna waxa weeye mid ka weyn oo ah mid joogto ah oo kula socdo oo ka haraynin oo walbahaar keeno asagana wuxuu u baahan yahay inaad iska daawayso iska gaartid midka saddexaad kaabaduna waxa weeye waa mid buufis ah oo kula joogto ah haddii marka murugadu ay jirro isu bedesho calaamaadka lagu garto waxa ka mid ah qofka inuu marra iska ooyo marra iska faraxsan yahay waxa ka mid ah in hurdadu ka tagto waxa ka mid ah mesela qofka madax xanuun inuu ku dhaco waxa ka mid ah mesela qofku inuu naftiisa naco waxa ka mid ah qofku inuu isu arko inuu yahay qof nolosha ku fashilan oo baaba ah oo dadka ka liita inuu isu arko waxa qofku inuu ku arko dadka kale inay ka qiimo badan yihiin waxyaabahaas oo dhan waa murugada aan ka hadlayno waxaan ka hadli doonaa daawadeeda waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo sababaha keena qofku inuu murugoodo maxaan murugada aan ugu celcelinayaa haddaad murugo joogto ah iyo walwal ku jirto nolosha dhan baa ka baabaaysa waxaad arkaysaa marka qaarkood qof caruur haysta oo guri haysta oo xaas leh oo inkan fiican leh oo baabuur wata oo haddana tukanaya oo cibaadaysanaya oo haddana walwal iyo murugo joogto ah ka muuqato hayso waxaan rabaa marka inaan sheego bal asbaabta murugada iyo walwalka keenta saan isaga ilaalino waxa ka mid ah waxay culimadu dhahdaan anta qaliqun li'annaka iktasabta naz'ata alqalaq dadka qaarkood walwalka wuxuu ka dhaxlaa familkiisa iyo qoyskiisa waxa dhici karta inaad hooyada iyo aabaha ka baratay oo is ogeyn waxa dhacda mesela haddii aabbaha markuu baabuurka wado ama hooyadu markay baabuurka wato ay naxdo oo walwasho gabadhaadu waxay u arkaysaa baabuurka wadidiisu inay walwal iyo murugo keento ku fiirsada haddii cunuga markuu yiraahdo uu caado ka dhigta inuu ooyo oo markuu ooyo wuxuu u ooyay la siiyo wuxuu arkayaa inayba tahayba markuu baahdo inuu ooyo si wixii loo siiyo idan waqti bilow ah oo hore ayaa dadkaaga ka dhaxlaysaa adoon is ogeyn qofka aad jeceshahay qofka aad ixtiraamayso baad ka dhaxlaysaa adoon is ogeyn waa tacliim qofka la barayo asagoon ogeyn waxaad arkaysaan hadda maalan waxyaabaha qaarkood waa lagaa cabsiin adoon wixii tajrubayno oon ka warqayn baad ka baqaysaa hooyooyinku gabdhaha way ku akhriyaan waxay ku akhrinaysaa ninkay guursan doonto inuu yahay nin xun dumarka saa u gala nimanku waa noocaas iska ilaali xaggay ka baxday marka gabadhiiba waxaa ka buuxda wax la yiraahdo negative programming baa maskaxdeeda ka buuxda iyadana waa negative soo wax lagu tarbiyay way marka muruga qofkii uu ka baqayaa mustaqbalkii guurkii uu ka baqayaa waxbarashadii uu ka baqayaa wuxuu ka baqayaa shaqadii waa wax lagu barbaariyo waana wardaalka waxa la caruurta ha lagu barbaariyo kalsooni marka waxa la yiraahdaa muktasab weeyo oo qofku asagoo yar ayuu bartaa waxyaabahaas waxa qofka ku dhacda wax la yiraahdo al-iqtidaa inuu waalidkii ku daydo oo uu daba galo oo meel aan muruga joogin uu ka murugoodo
وقلبك كوبان وعمرك وعادوا النقطة مرك قاركم وأرتين ضد سماء أنا سكيت شاقنا يا مانتورن سك على يوم نباته هين والضمر كقاركود والدين تقاركود أبياشي وسك على نبوا شاقنا مانتورن وهذا عقد إن نبات بهينين قف كان هو عادوا برتوحن مسألة الله بعد وحوي وحقلق كان يولولك إنه قفك النقطة وحل إلى هذا من نوعية الشخصية وحل إلى هذا personality إنه قفك النقطة personality وحل إلى هذا قف ربا وحبا إنك خلطمي ده سهجرة علماء القاربة وحيدها وحل هذا الشخصية الكمالية شخصية كمالية وحوية قف إنه لما يستريها إسوها يستا وحيابها قفك على الوقرة وحكم ذا marka koobaad mar walba wuxuu ku jira tartan joogto ah dad aan tartan kula jirin la tartamaya calaamaadka lagu garto waxa kamid ah naftiisa wuxuu ku qiimeeyaa dadka kale say u arkaan hadduu maanta wax wanaagsan asagu samaynayo dan kamale dadka kale waxay ka aaminayaan ba asaga la weyn waxa qofka lagu gartaa wuxuu ka baqaa shaqada inuu qabtaba asagoo ka baqaya inuu hagaajin waayo وهذا القرآن آخري إنه كبق إنه خلطه هذا ما أخناك قرآن برو ما قرآن ما بران كرانيك ما براناي ديارو مي واقعنا وفي عنا وحكبق إذا أنت خلدنت إلا هو خلدنت قفك عليها الشخصية أو وحول بيسوها يستئنوا يا كامل قفك أسولول كمبح صوت وحي يربع اسكده ومرية ولول بادلاي قفكاس وحيابها ولول ككان وحيابها ولولك كان وحكمده أن تشعر بالخوف والتشاؤم إن عبسي يباسيسي الآن سنتهي تدك قاربة وحباسيستا تدبا وحباسيستان هذي قادة كدعلو باسيسانيا هذي عانا كدعتان وباسيسانيا هذي ملح كدعتو وباسيسانيا هذي نمبر هذا قاركود نمبر ك13 أو كلا صدحية طبعا ودن كان والا باسيسانيا dadka wax baasaysto oo noocaas oo kala ah waa dadka la yiraahdo mar walba mustaqbalkay ka baqaan wana walwalaya u baqayaan waa dadka la yiraahdo mar walba wuxuu ka baqayaa wax la ifraadaat waxa weeye haday saan dhacdo wuxuu sawiranayaa balaayo inay ku dhacayso saasa inay dhacdaan ka baqaya waxaas inay ugu dhacaan baan ka baqaya hadduu ganacsi sameeyo oo uu khasaaro bil wuxuu aaminayaa inuu sanadkan khasaaray haddii boog yar ka soo baxdo wuxuu aaminayaa kansar inay tahay nasaasaa jira haddii calooshu xanuunto wuxuu aaminsanyahay boog inay caloosha kaga taalo nasaasaa jira balaayo waxbuu sheegaa maanta dhan dadka tashaa'umka iyo khawfka daa'imka ku jirana waa waxyaabaha walwalka iyo murugada keena weeye waxyaabaha keena waxaa ka mid ah walwalka iyo murugada waxa la yiraahdo ترغيب الاعتراف والتقدير إنه قفك جعل هي إنه دتك كلام مرول بقى اعترافان أو قيميان أو شرفان أو أي أمانان وسبحان الله دتك قارب ضم بساسة حديهم حاضر جيدينيو وحد عكت إنه كفكر دتكم حيكون حيان حدو شقة قبنا أيوه كفكر أيا دتك سيكو أركان حديل دتك أي وحير كشيغان همين كما سيحناي haddii qof uu dhaho dadka sahajira waxa dhici karta adoo caadi ah oo niyadu saga dhisan tahay oo uu fiican yahay haddii qof ka hor yimaado oo yiraahdo wallahi maanta way ka jaban tahay bariyahan ma xanuunsatay saa wax ka noqdeen caaw walwal lama seexanayso وفير dadka noocaas ka waxa la yiraahdaa waa qof bar walba dadka kale ka raadinaya inay amaanaan inay wax fiican ka sheegaan hooyooyinka qaar kood subhanallah dhibaato ku dhacaysa si dadka kale ayna wax u sheegin wixii bay qarsanaysaa jiru ku noqonaya waxyaabaha la yaabay bay kamid tahay inaad maqlaysid wax badan oo qisas ah qof dhibaatada qarsanay hadduu sheegi lahaa oo xal loo raadin lahaa uu heli lahaa laakiin dadka kale fiirinaya kaliya waxyaabaha walwalka keena waxa kamid ah أنت دائما تحتاج التحكم تدعى وحي جعليهن إنه دتك كلا كنترولان بروفير صدق وحي جعشها إن كذا إنه كنترولشو نبى جعل حاس كسر إنه كنترولو المها إنه كنترولو قف بقى جعل حتى ولا ليش إنه كنترولو
qof baa jecel dadka dhan la nool inuu kontaroolo qofka noocaas oo kale ah mar walba asaguna wuxuu dareemaa in aan waxba gacantiisa ku jirin wuxuu arkayaa dadka wax kala sameynay walwalaya waxyaabo walwalka keena waxa kamid ah waxyaabaha walwalka keena mararka qaarkood inay jirra ku haysooda ogeyn jirooyinka qaarkood waxaa la ogaaday oo hadda culimadu ay sheegaan فيتامينka hadda fitamiinaadka la vitamin B complex oo kale waa majmuucada vitamin B qofka ay ku yartahay waxa la yiraahdaa walwalka ku badan dumarka markay caadadu haday ka qasanto oo kale iyadoo is ogeyn waxa dhici karta walwal inuu ku dhaco joogta ma dhici karta marka inay jirto tahayna way dhici kartaa walwalku waxa walwalka keena inay dhibaato ku dhacday aad xasuusan tahay mar walba adduunku waa adduun imtixaan dhibaato ku soo maraysa waxa dhici karta subax adoo caafimaad qaba inaad soo kacdo marka soo kacdo inaad buuq reerkii ku soo kacdo caruurta oo qaylinaysa isdagaalaysa buuq ciyaalkiiba iskuulkii geysay inuu mid iskuulkii ka carabo sacuudi u raadiso baabuurkii markaa dabca inaa istaartay baabuurkii aba kici waayay وفيرس باوركي الله رفضت هذا حناقصن وكعي عنقي أصاحي شيء سكولك أدقيس سكولك ننكي مسؤولك كعبة صحن كلها الله باوركي الله حناقصن أصلا قت باوركي وباور كل عاوتن باورك هذا الله كل عاي أنت اسكت له الشقة دي أكده الشقة دي مركز تكتي ما نجد كاجي أكون قيلي marka tagtay waxa lagu yiri shaqadii lagu diray kan homework gurigaad ku soo ilowday waa adduunku waa saas waay haday waxaas oo dhibaato amaanin kugu dhacdo waxa dhici karta qofku inuu walwalo laakiin qofka muuminka waxa la rabaa inuu positive programming isku sameeyo inaad ahdid la'allaha khayr inay tahay waxa la yiraahdaa qofku haduu wax xun sawirtana balaayadu way ku sii badataa hadduu intuu easy ka dhigo wax fiican sawirtana way ku yaraataa waa wax mujarraba mas'ala soo socota ayaan kaga hadli doonaa marka way keentaa masaa'ibta qofka ku dhacay hadduu sa iimaankiisu xoog badnayn inay walwal ku reebto asbaabta walwalku tiro badan yahay waxa ka mid noqon karta qof aad u jeceshahay oo jiraday waxa ka mid noqon karta dhibaato weyn oo ku dhacday maadigaagii baastigaagii hore inay mar walba aad ka fakaraysid oo kugu soo noqnoqonayso waxaan rabaa inaan ka hadlo mas'alada muhiimka ah oo ah walwalka see loo daaweeyaa waxaan rabaa qofka ikhwaani tusaale yar baan idin siinayaa waxaa la yidhaahdaa qofka sidiisaba muslimka wuxuu aaminsan yahay النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أيو صبح واجو مركو بريو أيو نبي حديث صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن إلهي وحان كامان قال المرقذة أيان كامان قال يولولك النبي صلى الله عليه وسلم وحادي كرت إخواني نلش هذا أو إن هذا ولول كل ما يسألون يسألين صار عن كسينيا مثلا haddii qofku 24 saac uu 8 saacadood seexdo 8 saac oo kamid ah hadaa seexatid waxa la yiraahdaa waa thuluthu umrigaaga 3 meelood meel kamid ah waad hurdaa مثلا 6 sano hadaad gaadid hadaa maalintii 8 saacadood seexatay habeenka marka la isku daro macnaheedu waxa weeye 20 sano oo noloshaada kamid ah waa hurdaysa wala fiirsada ka soo qaad nolosha waxyaabihii daruuriyaadka ah cuntada cabitaanka musqusha weysada salaadii waxyaabaha guriga soo adeega guriga cunto kariska waxa dhici karta inay ka qaadato khumus boqolkiiba 5 noloshaada kamid ah marka qaadanaysa wala fiirsada haddaad shaqaysid oo aad shaqaysid مثلا 8 saacadood oo 5 bari usbuuci ah haddaad shaqaysid 5 maalmood 8 saacadood noloshaada marka ugu yaraato rubuc kamid ah shaqaad ku jirta weeye
idan waxaa dhici karta noloshaada marka laysu keeno boqolkiiba 83.3 inaad ku dhammayso waxyaabaha daruuriyaadka waxa kuu soo haray noloshii oo dhan boqolkiiba 17 baa kuu soo hartay boqolkiiba 17 iyo wax la jira baa kuu soo haray haddaad 17kii aad ku dhammayso walwal iyo murugo weligaa sacaado ma gaaraysa waxa dadka dareensiiya sacaadada iyo deganaanta iyo raaxada waa intaa yarta oo waqtiga u soo hartay hadduu nolol habi ah ku nool yahay qof way haddii kale walwal baad ku dilaysaa noloshaadii oo dhan waxaan rabaa marka daawada inaan wax yar ka hadlo qodobka koobaad ee daawada u ah walwalka waxa weeye waxa la yiraahdo salaada wallahi ikhwaani salaada sirta ku jirta haddaan fahmi lahayn waa cajiib salaada waxa la yiraahdaa waa tumaniina waa sakiina waa deganaan waa xasilooni salaadu qalbiga qofku u furtaa ma jiro qof salaadiisa ku khushuucay oo hagaajiyay oo hadana walwala ma jiro muruga marka qarka way kugu dhici kartaa laakiin walwal jiraa inuu kugu dhaco ma dhici karto ولذلك القرآن كإله وحليه واستعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة والفر صبر والصلاة كالميستا حديث كأبو داود كسونا النبي قال إذا أحزبه أمر صلى هذا مروقة كل عضو هذا وح النبي مرتيان هذا وح لسه قدونا هذا وتكنجري نن كم الدكاترة المسلمين تاع وقاضي عانا قاضي جاسم مطوع عليه هذا أيا وحويري maraykan ku dowra u yimid seminar u yimid wuxuu ninkii professorka seminarka bixinayay ayaa wuxuu sheegay buu yiri waxyaabaha lagu daaweeyo walwalka marka wuxuu yiri qofka inuu walwalka iska ilaaliyo wuxuu u baahan yahay 4 shay marka koobaad wuxuu u baahan yahay ar-riyaada waxa weeye exercise qofka inuu sameeyo sameeyo وحيابها مثلا أردك جمعسية وحيابها اللمتك والكويزولي سا جير كان ويقرحي سا أظن ما يسوقد وسمين سا وحكلو قفك أباهي الاسترخاء استرخاء وحالي هذا قفك انتو اسكالب بحيو أو مسكح يسهر ديسيو إنو نستأسون هردين انتو اسكالب بحيو مال حوقات جلعسان انتو اسكو كالب بحيو ونفسدو ونفسدو neef badan uu qaato hadana uu sii daayo waxyaabaha walwalka bixiyo waxa kamid abu yiri ninkaasi an-nawm al-amiq hurdada aadka u badan qofku inuu wax badan seexdo maskaxda dejinaysa markaasuu wuxuu yiri warabi'atan 'inda al-muslimiina faqat midda afraad muslimiinta kaliya ayaa haysta qof kale ma haysto markaasuu wuxuu wahiya al-khushuu'u fi salaatihim wa salaada oo lagu khushuuco waa nin gaal ninka soo hadlay مسلم ككلي أهلا قف كلام أهلا وصدق الله إذ يقول إلهينا الرب شيء مركو يري قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مركا إذن إخواني هدا صلاة كخشوع حقيقة وحاء قلبه كودقيا نمر جيسان تاهي مولوليسا هرد الآن ما كود عضي ما أنت صلاة كخشوع باكو قدام بيسوي ولنو كود waxaa nin saalixiinta kamid laga wariyay inuu yiri innahu la tamurru bi waxa isoo marta awqaat min al-khushu' lillahi wa munajatihi waqtiyo sida aan ilaahay ugu khushuuco iyo sida aan ilaahay ula faqayo oo ula kali noqdo uhissu fiha min an-na'im waxaan dareemaa nicmo ma aqulu fihi hadana waxaan isdahaabu yiri in kana ahlu al-jannati fi mithli hada إنهم لفي عيش طيب وحاس ذهبوا يمركان دريمو هذي أهل الجنة وحان وكلا هايستان نرى عجيب أبي يكونوا لهن أو ونكسر خشوع ذاك أنت وحاس هذا مركز صلاة هذا صلاة أن تكن إنه كما خشوع صادرت النتيجة دي كما أرقنا هذا صلاة هذا كخشوع ذا حقيقة وحاء والكوكاتجيا مثال هذا الله بعض أول والكسارة وحوي وحلها الدعاء إن إلهي برضه
وحال هذا من أنفع ما ينفع مع البلاء وخاصة مع القلق الدعاء waxa ugu badan oo qofka markay dhibaato ku dhacdo anfaca khaasatan markuu walwalayo waa ducada markuu ilaahay leeyahay wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib markuu ilaahay leeyahay quraanka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum markuu ilaahay waajibinaya in la bariyo oo uu leeyahay wad'uuhu khawfan wa tama'a sir weyn baa ku jirta war ilaahay bariya idinka oo damcaya oo hadana ka baqaya ilaahay baryadu waa ajiib saxaabada nabiga radwanullaahi calayhim maalin buu nabigu la hadlo wuxuu sheegay duca kasta oo alla barida in laga ajiibayo markaasay waxay dhahaan idan nukthir ya rasuulullah suuq ilaahay oo hadaba waan badinaynaa ducada nabigu wuxuu yahay allahu akthar ilaahay baa badan haddaad badisay ilaahay baa ka sii badan waxaan isweydiinaynaa su'aal ah maxaan alla weydiisanaa qofkeena noogu badan wuxuu weydiista ilaahay magaalada Minneapolis ma dhama hal magaalo ama dhama waxaan ilaahay weydiisanaa haddaan ilaahay qof kastoo nagamida adduunka oo dhan u weydiisto oo alla siiyo ilaahay waxba kuma ah marka wax kasta oo kula soo gudboonaada alla bari marka ducadu way anfacdaa waa ajiib weey waxyaabaha kale oo anfaca waxa kamida walwalka oo daawada u ah oo niyada qofka u dajiyo oo noloshiisa qofka ugu raaxaysto dhikriga alle wallahi ikhwani allah xustiisa wax muruga ah oo hor istaagi karta ma jirto muruga kasta oo ku haysa markaad ilaahay xustid ruuxdaadii baa qoyaysa niyadaadii baa fiicnaanaysa aqligaagii baa dhaqmaya waa degaysaa waxaad dareemaysaa noloshaada nolosha ugu sacaadada badan inaad ku jirtid wallahi marka qaarkood waxaan isdhahaa marka aad aragto quraanka markaad akhriso oo aad ducaysatid oo aad ilaahay baridid oo aad adkaar akhrisid waxaad isdhahaysaa haddaana waxaan haysan lahayn waaban baabi'i lahaaba way ku dhamaan lahayd waa ajiib baad dareemaysaa waxaan rabaa marka aad dikriga aan ka hadlayno markaste oo kugu soo dhacda fikrad khaldan oo xun oo negative ah waxaa lagu horgeeyaa dikri ilaahay baa laga horgeeyaa bafirsa ikhwaani haddaad fikradda xun aad ka sii fakartid oo maskaxdaada aad u sii furto caqligay kaa galaysaa way ku kontroolaysaa وذلك القرآن كحولي ومن شر الوسواس الخناس إلا وحن كامان قالي شيطان كوسواسية مت كوسواسية قرصون شرط سان كامان قالي القرآن كحولي من الجنة والناس الشيطان كأجوهر وصدح شر أوطن يولول أوطن يمرقو أوطن صدح شيء كان الشيطان وأنا مت كأجو خبرة بدن أو أجو خطر سن حجاس dadka kale inay kugu abuuraan waa dadka adiga kugu wareegsan ama kula nool ama ka agdhow xaaskaaga ama ninkaaga ama caruurtaada ama walaalaha ama hooyada ama aabaha ama qaraabadaada ama saaxiibada ama macallimiintaada ama qofku inuu yahay qof ka fog TV-ga oo kale waa qof laga fog maskaxda inaga kontroolayaan walwalba kugu furayaan midda saddexaadna waxa weeye walwalka naftaada abuurta markuu ilaahay leeyahay min aljinnati wannaas naaska adiga naftaada kamid naftaadu min annaas bay kamid tahay haddii marka walwal hadday maskaxdaada wax negative ku soo dhacaan markiiba dikri ilaahay ka horgee dikrigana ka fakar macaanidiisa markaad leedahay subxaan allah afdalu dikri waa laa ilaaha illa allah الله أكبر سبحان الله الحمد لله علماء وحيدهان مركا أن كلمتها آخرين إنه مدول بمعنى كنتا هذا كيف فكرت مركبة داونا ويكنتا معاني ذا كنا وحكم ده مركا مثلا هذه اللي يري ربتيد كربا مركا كويس وربت كربا إنه كاب حدا وحال آخرية الله أكبر وحي كانتا عزي
nasri faraj degdeg ah ayay keentaa markii qofku uu dareemayo alam xanuun uu dareemayo hadduu ku celceliyo alxamdulilah 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 xanuunka wuu ku dhaafayaa markuu qofku fakarayo oo maskaxdiisu qasanto hadduu ku celceliyo subxaana allah laa ilaaha ila allah maskaxdiisii baa degaysa baalansi bay noqonaysaa fiiri maxaad ka helaysaa marka waxaad tihi laa ilaaha ila allah allahu akbar subxaana allah alxamdulilah waxaad ka helaysaa walwalku inuu kaa baxo maskaxdaadii inay degto qalbigu inuu dego in fikirkii kuu tooso waad la yaabaysaa markaad maqasho culimmada muslimiinta imaam ibnu taymiya oo dhahaya wa innahu la tascabu calaya mas'ala igu adkaata mararka qaarkood markaan dhaqaajin waayo intaan sujuudo ama dhabanka aan ciidda dhiga dhulka dhigo ayaan waxaan dhahaa kun mar astaghfirullah 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 markaan badiyo wado ayaa wixii hore isu kayfraan oo fahmaa waa cajiib waay marka haddaad walwal ama isku aragtid waxa lagu daaweeyo ugu horeeya waxa weeye dikriga alle alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub qodobka kale oo lagu daaweeyo walwalka waxa weeye atawakkulu wa xusnu dhanni inaad ilaahay tala saaratid wax fiicanna ilaahay aad ka malaysato xadiidka nebiga sal allah alay wasalam nebigu wuxuu leeyahay ilaahay baa wuxuu yidhi fiiriya ilaahay baa wuxuu yidhi ana cinda xusni dhanni cabdii bii falyadunna bii maa shaa anigu waxaan ahay malaha addoonkaygu uu ii maleeyo ee wuxuu raba ha ii maleeyo ma fiirso haddaad ilaahay u malaysa ilaahay deeqsi ah oo fiican oo ku garab taagan oo ku caawinaya oo wax walba kuu fududaynaya oo isku hadlayso oo umuurta aad u dhibato wuu ku caawin waxaa la yidhahdaa waxaa jiray nin Chinese ah oo wuxuu leeyahay hal wiil ah iyo faras uu ku shaqaysto marka faraska aad buu u jecel yahay dadka dhan markay ninku faraskaas kaliya u shaqeeyo maalintan faraskiya ka dhumay dadkii oo dhan baa u yimid iyaga u tacsiyeynaya raalli ahaw musiiba kugu dhacday markaasuu wuxuu yidhi baa la yidhi wax kalena way dhici karaan isbeddel lagu imaan karaa saddex beri kadib faraskii oo socdaa u yimid oo intuu duurka galay ayuu faraskii wuxuu la saaxiibay dameerul waxshi waa zibraha bahalkaan dhaha waa dameer farowgiibu soo watay gurigu keenay dameer farowgii wuu carcarray markuu arkay ninka faraska tataabanaya isagana wuu u yimid ninkii faraska iyo dameerkii buu raran jiray dadkii marka waxay u yimaadeen ayagoo oo u tacsiyeynaya iyagoo u hambalyeynaya maa shaa allah cajiib ma faraskii wuxuu kuu keenay mid kale ilaahay kuu barakeeyo markaasuu yidhi wax kalena way ka dambayn karaan hadda wanaag baan joogaa dhibaatana way dhici kartaa hadalkii uu yidhi faraskii baa wiilkiisii haraato ku dhuftay lug buu ka jabay wiilkii haddana dadka waxay u tacsiyeynaya waxay dhaheen warniyo dhibaataa kugu dhacday markaasuu wax kalena way ka dambayn karaan faraj baa ka dambayn kara ciidan baa yimid tuuladii bay qabsadeen wiilashii oo dhan bay askartii raafeen wiilkii waxay kan uu jaban yahay naga daaya way ka tageen fiiri ninkaas markuu wax fiican ilaahay u malay wax fiican buu ilaahay siiya markuu xumaan u malay xumaan buu ilaahay siiya haddaad ilaahay u malaysid wax fiican wuu ku wanaajin marka intaad walwali lahayd hadday dhibaato kasta kugu dhacdo wax fiican ilaahay u malay imaamu ibnu taymiya tusaale idin soo qaadi cajiiba ayaa waxaa lagu yidhi niman baa dhibay markaasuu wuxuu yidhi maadaa yasnacu bii acdaa'i cadowgaygu maxay ugu samayn karaan anugu waxaan ahay nin amarkiisu gacanta alla ku jiro hadday ixiraan ilaahay wakhti aan ku caabudaaban heliba hadday imasaafuriyaan dalxiis baaban aadiba hadday idilaanna waa shahiid baan ahayba maxay ugu samayn karaan anugu nin waxaan ahay buu yidhi jannadiisu ay qalbiga ugu jirto jannadaydii beertaydii aan ku dalxiisi lahaa baaba qalbiga igu jirtaba fiirsu ilaahay ugu kalsoon yahay nabiyullaahi yacquub inta wiilkiisa yuusuf uu ka maqnaa maalin waxun ilaahay umuusa malayn waa loo yimaadaa waa lagu calaacalaa wiilkaagii iyay baa cuntay waxbaa cunay saanuu noqday
dhibaataa dhacday wuxuu dhaha fasabrun jamiil waa loo yimid kii kalena waa dhumay ee labaad fasabrun jamiil casa allaahu an yaatiyana bihim jamiica wuuba ka sii darayba saddexdii wiil baa la waayay fiir saddex wiil waay markaan hal mid maaha waa kii doonay iyo yuusuf iyo walaalkii waa saddex markaasuu wuxuu yidhi tii hore waxayba ahayd fasabrun jamiil wallahu almustacaanu calaa maa tasifuun markaan wuxuu leeyahay fasabrun jamiil casa allaahu an yaatiyana bihim jamiica ilaahay wuxuu mudan yahay inuu ii keena iyaga dhan saddexdaba ilahay baa keenaya وكسي دري يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله نحريس الله كقوسنين أرض يوسف صور هذه يوسف انت صار سنة كهر نويبا هذا الهيسا إلى مركي الدنبؤي وأعلم من الله ما لا تعلمون ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون وروح إذن أقيم بان أقهي أنو إذن إخواني وحارب قفكم مؤمنك dhibaataa kugu dhacaysa waad kurboonaysaa waad walwalaysaa waxaas leedahay masaan baa kuu dambaysay ma waxaana maanta kugu dhacay masaan baad noqotay maya waxaad dhahdaa ilaahay wuxuu ii dibdhigayaa khayr ilaahay wuxuu ila rabaa khayr ilaahay wuxuu igu bedeli doonaa waxaan ka khayr badan ilaahay baa gacantiisa ay ku jirtaa amarkaygu dheh waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu daaweeye walwalka waxaa ka mid ah haddaan intaas uga baxo saddex afar baan idiin sheegay afartuba shareecada ku saabsan waxaa ka mid ah cish xaadiraka wakhtiga aad maalintaa nooshahay ku mashquul dadka qaarkood murugada ugu badan oo haysa waa wax tegey baladu hadda isfiir maxaad la seexan weeyaysaa walwal wax tegey baad ka walwalaysaa dadka qaarkood waxay la seexan leeyihiin wax mustaqbal hoon dhicinba bay la seexan leeyihiin war wixii tagay ma soo noqdo waxa nibana alla gacantiisu ku jira maalintaadaas aad joogtid ku mashquul xaadirkaaga ku noolow waxaa ka mid ah ikhwaani waxyaabaha walwalka qaada waxa la yiraahdo waajih al-makhaawif waxyaabaha cabsida ku keenaya waxaa rabaa inaad face garayso ka hortagto waxaa dhici karta in wax lagu cabsiyo aan jirinba wixii aad damacdi inaad samayso samee alla tala saaro qofka waxaa laga rabaa markuu go'aan gaaro inuu kow alla istikhaaro weydiisto inuu dadka mu'miniinta alla tashado inuu go'aan gaaro inuu ku socdo ما خاب من استخار ولا ندم من استشار قف إلهي استخاره ويديستينا ما خساره قف دتك الله تشهدين ما مرقود مركا وحال ربا إناد كفك إناد عمل سميس إناد بقين إناد مستقبلك كبقين مستقبلك قعنت ألوك جرا وحال أقنها دتك مرول بمستقبلك كبقى أو لباتك كبقى أو بلايا سات صدا لباتك كل عضا حقيقة هذا سوي waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu daaweeyo walwalka oo waliba aadka u anfaca oo muhiimka ah waxa la yiraahdo taqabbul alwaqi' waaqica aad ku sugan tahay oo xaqiiqada adigu aad tahay waa inaad aqbasho waxaadan ahayn haysboodi waxaadan haysanin raadin haddaad maanta dhan aad ku fakarto waxaadan haysanin ma fiirsado waxa mar la iiga sheekaynayay gabdha aroos isugu yimid ayaa waxa leeyahay gabar xoogaa show ninkeedu iska faqiir yahay laakiin nolol fiican ku nool ayaa arooska markay tahay waxa artay naagihoo dahab ka wada buux meeshii way oohin la fariisatay allahna waxa naagahan haystaan ma haysto dumar badan baa saa ninkooda kaga tago ay ku furaan Soomaa hadada waxa isiin karin hadada waxa ii qaban karin hadada heblaayo kale iga dhigi karin hadada saan waraaqi waxa la rabaa ukhti waxa la rabaa waaqicaaga ku noolow waxaad fiirisaa waxa adigu aad haysatid haddii aad fool xuntahay ilaahay baa saa ku abuuray ku qana haddaad isqurxi oo iskala daashay iscadayn iyo balaayo ood murxdid ood baabaadid maxaad isu keentay haddii aad qurxoontahay ilaahay baa saa ku abuuray bal fiirso haddaad qabiil ka dhaltay ilaahay baa kaa beeray haddaad Soomaali tahay ilaahay baa kaa dhigay haddaad gabdho dhashay ilaahay baa ku siiyey haddaad wiil dhashay ilaahay baa ku siiyey haddaad lacag haysatay ilaahay baa ku siiyey bal fiirso waxaa la rabaa waaqicaaga intaad aqbasho inaad waxa aad haysato aad ku qanacdo xaqiiqatan meeshaas oo saacado ay ka bilaabataa
inaad aragtid waxa ilaahay ku siiyey waxaa ka mid ah waxyaabaha keena niyadda oo degan waxa la aamin bimabda'i tasliim waxaad aamintaa waxa la yiraahdo ilaahay baa qadaray dhibaato kugu dhici karta saad u joogtid qofka aad dadka ugu jeceshahay baa dhimanaya waxaa dhici karta inay kugu dhacdo reer baaba'ay oodan weligaa ka fakerin adoon weligaa xisaabta kugu jirin waxaa dhici karta inay naagtaada ifur ku dhahdo ood furto ama inaad ninkii uu ku furo weligaa adoona kugu jirin aan kugu jirin jadwalka waa hadda waqtigii wuxuu batay intuu batay ayaa waxaan aragnay niman badan oo dumarkooda intuu shaqo u aaday voice mail u dhaafayo oo ku furaya ama text message ku furaya xaqiiqatan naa guri lagaga tegay oo gurigii joogta oo ilmihii haysa oo voice mail ama text message lagu furayo haddii marka dhibaatadaasoo kale a kugu dhacdo waxaan mar walba hawaalanin ha fakerin ha baabi'in waxaan aqaanaa gabdho intuu nin ay la noolayd uu furay sarwaal qaatay oo diintiiba ka tegayba kuwa waxaa la sheegaya gaaloobay yaa akhwaani hadday dhibaata kugu dhacdo waxaad aamintaa qadar allah ilaahay baa qadaray wuxuu rabuuna sameeyaa aduu waxbaad rabtaa anugu waxbaan rabaa ilaahayna wuxuu rabuu sameeyaa marka waa inaad masaladaa aaminto musallam ay noqoto waxaa ka mid ah isnac alibtisaama waxaad abuurtaa adigu wax farxad isgeli aduu iska farxi ibtisaamo abuur markaan ku leeyahay waxa weeye waxaa la rabaa inaad aduu faraxdo nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam wax kasta inuu dadaal ku yimaado quraanku saasuu sheegaya walladina jahadu fiina lanahdiyanahum subulana hada dadaashid ilaahu ku hanuunaya nabigu wuxuu leeyahay inama alilmu bita'allum wa inama alhilmu bitahallum cilmigu waa barasho dulqaadkuna waa isdulqaadsiin sabirkuna waa barasho khushuucduna waa barasho inaad habi noqotidna waa barasho aduu abuur marka aduu waxaa samaysaa jawi aad habi ku noqon kartid farax reerkaa ka farxi qofka koo nool ka farxi caruurtaada ka farxi farxad ku noolow waxaan ku soo khatimayaa asil macaani alxubbi waxaad samaysaa wax la yidhaahdo macno jacayl ah waxaad noqotaa qof wax jeclaada kow allihii ku abuuray jeclow waa midka ku abuuray waa midka ku irsaaqa waa midka ku naxariista waa midka markii albaabada dhan kaa xirmaan albaabkiisa aad aadid diintiisa jeclow rasuulkiisa jeclow waxaad jeclaataa dadka saalixiinta oo addoommada ilaahaya waxaad jeclaataa naftaada qof aan naftiisa jeclayn dadka kale ma jeclaado waxaad jeclaataa dadka qaraabadaada caruurtaada iyo ninkaaga ama xaaskaaga walaalaha hooyada aabbaha saaxiibadaad jeclow xayawaanaadka makhluuqa alla jeclow dadka waxaa la rabaa qofka mu'minka ah inuu naxariis iyo jacayl iyo farxad ay ka muuqato waa waxyaabaha keena qofka inuu mutma'in degan oo faraxsan noloshiisa u noqdo waxaan ku soo khatimayaa masaladan waxaan ku soo khatimayaa waxyaabaha qofka murugada ka ilaaliya kaliya waan tirinaha ma sharxi karo waxaa ka mid ah wax li tafaa'ul tafaa'ulku waxa weeye mar walba inaad wax wanaagsan filatood malaysato waxaa ka mid ah taxamus si xamaasad leh oo qiiro leh inaad waxaad qabanaysid iyo shaqadaada aad u qabato waxaa ka mid ah taxadus can najaax mar walba waxaad ka sheekaysaa waxyaabaha successka u hodgaari kartid ama aad gaadhay ka sheekee oo ka fakar waxyaabaha negative-ka ka fakari waxaad mar walba abuurtaa bii'a ama environment oo iijaabi oo positive ah kuwa negative-ka ka dheerow waxaad samaysaa jadid maa xawlaka noloshaada iyo waxa kugu agnool iyo waxa ku khuseeya cusboonaysiin mar walba cuntadaada badbedel dharkaaga badbedel sariirtaada kala bedel daahyadaada kala bedel hadalkaaga habkaad u seexatid wax kasta oo nolosha haddaad kala bedesho qiimo yeelanaysaa ma ogtihiin sacaadada hadda guri baad degantaa ka soo qaada maalan waxaa dhici karta nolosha inay booring kugu noqoto haddaa adiga iyo carruurta intaad hamayn baxdaan aad magaalada dhexdeeda hoteel a seexataan
waxaad dareemaysaa inaad aroos tahayba isbeddelkaa yarka ah waay fiiri wax yar noloshaada kala bedel waxaa ka mid ah khatid lilnajaax mustaqbalkaaga saad ku guulaysan lahayd qorshe waxaa ka mid ah laa tasjib almughaalataat waxyaabahaas sheeka beenbeenta oo dadku kugu sheekaynayaan ha dhegaysan saasaa dhacday waxaasaa qof ku dhacay balaayaa dhacday xaggee ka baxday waxaas niyadaada ha gelin waxaa ka mid a naftaada ihtimaam gooni asi inta dadka kale ka fakar naftaada ka fakar naftaada run u sheeg wallahu aclam jazakum allahu khayran laba mawduuc baa haray oo waaweyn oo mawduucaan ah aan ka hadlayo alxayaatu tayiba ama istamtic bixayaatka noloshaada ku raaxayso in sha Allah ta'ala mustaqbalka ayaan waxaan rajaynayaa inaan waqti muxaadarooyin ka jeediyo masaajidka Abu Bakar oo kale oo aan mawduucyada ka hadlo dhamaystiro mawduucan jazakum allahu khayran wallahi yaqul hawa sabil Tawakkal Express waa shirkad leh khibrad ka badan 20 sano waxay bixisaa adeeg 24 saac dhab ah Tawakkal adeegyadeeda waxaa ka mid ah online money transfer Tawakkal mobile money transfer iyo Amano Tawakkal money services waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad taleefankaaga ka dirsatid lacagaha adiga oo jooga meel waliba akaunka Tawakkal waxa uu kuu sahlayaa in aad lacagahaaga ka isticmaashid taleefankaaga meel walba adiga oo jooga xafiis dambe u baahan maysid inaad booqatid Tawakkal account waxa kale uu kuu sahlayaa inaad kala socotid diiwaanka lacagihii aad dirtay ama se lagu soo diray mar waliba hamogaan adeega Tawakkal ee loo maqsuuday booqo tawakkal.com Tawakkal Amano Soomaaliya waa adeeg kale oo aad dhigan kartid lacagaha adiga oo isticmaalaya current account, saving account iyo checkbook intaba. Tawakkal Express waxa ay si xoogan uga howlgashaa North America, Europe, Australia, India, China, Middle East, Africa iyo Soomaaliya. Tawakkal Express hadda u dhiibo, hadda ha bixisee, hadal la'aan.